iyo farlan dhaqaana la qaday ka dimaadaan state Awdal state Dr. Rashid Al Nur. marka labaad waxaan rabaa inaan ka dhaqan ahaan iyo ka guurta ahaan iyo ka deegaan ahaan intaba inaan ku soo dhaweyno Awdal state madaxweynaheeda iyo ragga kale xildhibaanada ee la socda dhamaantood wajecelnahay waxa meeshaan hadda aad u timaadeen walaalayaal marka kuwaadana leenahay waxa weeye deegaan adinka leenka leeyahayna maahan waa caasimadii dalka Soomaaliyeed ee aad taqaaneen ka shaqayn jirteen ku barbaarteen ku dhalateen laakiin haddii xoogaa dadku kala qaxay xataa adinku ku qaxay maadna lahayn marka runta laga hadlo dhabta marka laga hadlo ku soo dhawaada walaalihiin oo idin leh mar labaad waxaan idinkaga mahad celinayaa qarannimada Soomaaliya soo imaadkeedii waa la ogyahay meeshuu ka yimid qaranka Soomaaliyeed meeshuu ka yimid waa meesha hadda walaalahay haddana ka yimaadeen la leeco inaad mar labaad soo celiseen aad ku fikirteen 20 sano oo isjiijida kadib Soomaaliya ismaxan mooga koonfurna hadda wax gaar ah may keenin iyo qarannimo dhaba iyo nabadgelyo lagu faani karo Soomaali celin waqooyina qaran la aqoonsan yahay may keenin marka xigmad rabbaani ay ku jirto waa la isla sugayo waa iska imtixaan bay 20 sano waxaan rajaynaynaa marka insha Allah in la soo gaaray xilligii qolo waliba runta aragtay koonfur waligeed waqooyi kama dhameen waqooyina kama dhama ayadaaba qurisayba iyadoo qaran oo madax banaanida ku horeysay ee 4 cishad aan uga weyn oo la dhihi karo waa quradkii Soomaaliya ayada go'aan dadka halka jooga qarannimada keenay idinkana maanta waxaan u arkaa 51 sano kadib markay leeyahay qarannimada inaad mar kale keenteen ku soo dhawaadan leeyahay gacmo furan waxyaabaha aan halkan magaalada Muqdisho oo muddo dheer aan ka maqnayn intii ka horeysana aan ku noolayn oo aan si fiican aan wax uga baranay waxaan dib ugu soo noqonay markii